جمعية ميدينتا iyo horumarinta ardayda Soomaaliyeed dalka Suudaan ayaa waxay u qabteen xaflad aad u heer sarreysay ee qalin jabin in ka badan 30 arday oo ka qalin jabiyay takhasusaatka kala duwan oo ay bixiyaan jaamacadaha kala gedisan ee dalka Suudaan. xafladan qalin jabin ayaa aad uga duwaneyd xafladihii hore ee Suudaan ka dhici jiray maadaama mar qura ay kulmisay arday dhameystay darajada koobaad ee baccalaureate-ka, masterka iyo doctoraha. furitaanka xafladda ayaa waxaa daafuray xogayaha guud ee Jimciyadda Mideynta iyo Horumarinta Ardayda Soomaaliyeed dalka Suudaan, Maxamed Xasan Ashraf, isagoo dhammaan ka soo qaybgalayaashii ku soo dhaweeyay si farxad leh booriyayna ardaydii qalin jabisay. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. مدنياتي مروي دمان كسر الجلاش حبر دواعي كسلام يا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية مدحنا ومدى سفارة الصومالية ميدو اتحادك جمعياتك أحزابك بدوينك قرشينا شرفت بدن قبلها ورفض بدن خريجينك بعد الصحافة كاميرمانك dhammaan waxay ku soo dhaweynayaan salaan gacmo furan leh waji furan iyo qalbi saliim ah ay ku soo dhaweynayaan wiilasha ku howlanaa xafladan iyagoo ah midnimada ruuxda wadaniga shabaab Soomaali ayaa iyagu shucuurtooda farxadeed cabiraya waxay la hadleen telefishinka Soomaaliya TV. جمعية ميدينتا iyo horumarinta ardayda Soomaaliyeed dalka Suudaan ayaa ka mid ah jimciyadaha ugu faca weyn ee ka dhisan wadanka Suudaan. xafladana waxay u tahay tii 16aad ay ku qalin jabiyaan arday Soomaaliyeed. Maxamed Ciise Koona, Soomaaliya TV, Khartoum, Suudaan.